السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادا دوني عصب قولون عصب مالين عصب iyo muuqaal cusub waxaan YouTube ka maqneen muddo ku dhawaad 3 bilood ah copyright YouTube channelka lagu qabto ugu dambeyntii waan soo laabtay maanta muuqaalkeena waxaan ku wadaagi doonaa YouTuberska Soomaalida ugu caansan bishii imisa lacag ay ka sameeyaan waxaan u maleynayaa inay dad badan ay raadinayeen muuqaal noocan camal ah waxaan isla meel dhigi doonaa 2020 YouTuberska Soomaalida kuwa ugu caansan bishii imisa lacag ay ka sameeyaan sanadkii imisa lacag ay ka sameeyaan waxaan ku daawa doonaa muuqaalkeena maanta ee daawasho wacan soo dhawaada asxaabta sharafta loo waxaan ka bilaabi doonaa YouTuberska loo yaqaano King CK bishii wuxuu sameeyaa lacag gaarayso 1300 sanadkiina wuxuu sameeyaa lacag gaarayso 16000 ilaa $100 hadii aan u imaano gabadha loo yaqaano Fortune Balbalaarka YouTube-keeda bishii waxay ka sameeysaa $334 ilaa sanadkii ay ka sameeyso lacag gaarayso $4000 hadii aan u imaano YouTuberska Idris Abdi bishii wuxuu ka helaa YouTube $786 ilaa sanadkii uu ka helo $9400 hadii aan u imaano YouTuberska loo yaqaano Munir official Munir YouTube-ku wuxuu ka sameeyaa bishii $624 sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $7500 hadii aan u imaano gabadha loo yaqaano Adna bishii waxay ka sameeysaa $637 sanadkiina waxay ka sameeysaa $7600 hadii aan u imaano YouTuberska loo yaqaano Arimehena YouTube wuxuu ka sameeyaa $645 sanadkiina wuxuu ka sameeyaa Arimehena YouTube $7700 ayuu ka sameeyaa sanadkii YouTube hadii aan u imaano YouTuberska loo yaqaano Liicato bishii wuxuu ka helaa YouTube sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $4000 hadii aan u imaano YouTuberska Shiina Cole YouTube wuxuu ka sameeyaa $406 sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $4900 hadii aan u imaano YouTuberska Ogaansho bishii wuxuu ka sameeyaa YouTube $388 sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $4700 hadii aan u imaano YouTuberska loo yaqaano Ozo Production YouTube wuxuu ka sameeyaa $33 bishii sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $396 hadii aan u imaano idaacada Buluxuwe YouTube wuxuu ka sameeyaa bishii $245 sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $2900 hadii aan u imaano dhiirigeliye YouTube wuxuu ka sameeyaa $584 bishii sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $6200 hadii aan u imaano channelka maanta YouTube wuxuu ka sameeyaa $360 bishii sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $4300 hadii aan u imaano channelka dadweynaha bishii wuxuu ka helaa YouTube $295 sanadkii intuu ka sameeyay waxay noqon doontaa $3500 hadii aan u imaano YouTuberska caanka ah Yaslim Cumar waa YouTuber Somali dadkii ugu horeeyay bishii wuxuu ka sameeyaa $160 sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $1900 hadii aan u imaano Somali React YouTube waxay ka sameeysaa $114 sanadkiina waxay ka sameeysaa $1400 hadii aan u imaano Durdur Media cusub hadii aan u imaano YouTube waxay ka sameeyaan $956 ka bishii sanadkiina waxay ka sameeysaa $18500 Durdur Media hadii aan u imaano Cabdi Askari Tube waa YouTuberska Soomaalida midka lacagta ugu badan ee soo gashay YouTube wuxuu ka sameeyaa bishii $2300 sanadkiina wuxuu sameeyaa $27300 hadii aan u imaano YouTuberska caanka ee Hataf wuxuu sameeyaa bishii $1300 sanadkiina wuxuu sameeyaa $15600 hadii aan u imaano Liibaan Jaamac YouTube-kiisa wuxuu ka sameeyaa bishii $1400 sanadkiina wuxuu ka sameeyaa $18500 waxaan u maleynayaa inaan soo qaadanay 20 YouTubers oo caan ah waxaan iga tagayaa inta muuqaal camal ku kulmeeno wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh Diriyan, oh, Diriyan, Diriyan, oh,